Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada mar kale kanaalkeena Theory Somali oo aad oga barateen casharada theory-ga ama casharada calaamadaha wadada khuseeya ama waa calaamadaha baabuurta. Maanta waxaa si gaar ah aan u sharaxaynaa boorarka ama calaamadaha khuseeya wadanka Belgium insha Allah maadaama kanaalkeena uu khuseeyo calaamadaha wadada oo baabuurta khuseysa gaar ahaan Holland iyo Belgium insha Allah. Boorka inoogu horeeya ama boorarka noogu horeeya khaas ahaan waxaa loo yaqaanaa hadduu la haydmo Givaarsborden. Waxaa loo yaqaanaa Givaarsborden. Boorarta ama calaamadaha kaaga digaya halista. Calaamadaha kaaga digaya halista weeyaan insha Allah. Givaar waa halistii, boorna waa boorkii aan garanayna. Givaarsborden boorkan wuxuu dhahayaa Givaarlijke bocht golad halis ah naar links oo dhanka bidixda u leexanaysa. Gevaarlijke bocht naar links golad halis ah oo dhanka bidix u leexanaysa. Waa boorka noogu horeeya ama calaamadii noogu horeysay insha Allah. Boorka xiga wuxuu dhahayaa hadduu la haydmo Gevaarlijke bocht naar rechts. Gevaarlijke bocht golad halis ah oo dhanka midigta u leexanaysa. Waa gevaarlijk halistii bochtana waa goladii. Waa golad halis ah oo dhanka midigta u leexanaysa insha Allah. Boorka xiga ama calaamada xigta wuxuu dhahayaa hadduu la haydmo gevaarlijke dubbele of meer dan 2 bochten de eerste naar links. Gevaarlijke dubbele bocht ama golad oo laba jibaaran oo halis ah ama meer dan 2 bochten ama in ka badan goolado ka badan laba ka badan the eerste naar links oo midda ugu horeysana dhanka bidix aadaysa. Goolada xigta ama boorka xiga wuxuu dhahayaa asigana gevaarlijke dubbele of meer dan 2 bochten. Waa bocht ama goolad halis ah oo double ah ama laba jibaaran amaba ka badan laba ka badan the eerste naar rechts oo tan ugu horeysa ee aadaysa dhanka midigta. Calaamada xigta insha Allah still ama weli waxaan ku sugannahay boorarka ama calaamadihii loo yaqaanay Givaarsborden. Kana wuxuu dhahayaa Gevaarlijke dalin. Gevaarlijke dalin wuxuu ka hadlayaa asigana boor kuu sheegayo waa degaandeg halis ah. Meel taag ayaa ka degaysay oo aad ku wada gaariga wuxuu ku dhahayaa meeshan waa degaandeg mise waa taag aad ka degaysid waana halis la soco. Midka xiga Gevaarlijke helling. Gevaarlijke helling waa dalcad aad korayso halis ah iyadana ama steile helling sidoo kaleeta iyadana waa dalcadii oo halista ah ayaad koraysaa. Gevaarlijke helling ama steile helling insha Allah. Boorka xiga wuxuu dhahayaa Rijbaanversmalling. Rijbaanversmalling wadada waa la soo yareeyay. Rijbaan maxaa la dhahaa wadada baabuurta lagu wado. Versmallingna waa la soo yareeyay. Way yar tahay laba gaadiid iskuma dhaafi karaan mise laba baabuur isma mari karaan. Yacni laba baabuur oo iska hor imaanayso hal mar ma mari karto. Midka kale inuu sugo weeyaan insha Allah. Waxaa la dhahaa marka Rijbaanversmalling. Kan xiga Rijbaanversmalling langs links. Rijbaan wadadii baabuurta maraysay. Versmalling oo la soo yareeyay. Langs links oo dhanka bidixda laga soo yareeyay. So dhanka laga soo yareeyay qofka ku sugan waa inuu istaagaa. Dhanka kaleeta qofka jooga asiga waa free wuuna socon karayaa. Boorka xiga Rijbaanversmalling wadada la soo yareeyay langs rechts dhanka midigta. Qofka dhanka midig jooga ama dhanka ay wadada ka soo yartahay joogo waa inuu istaagaa waayo dhanka kale qofka ka imaanayo dhankiisa waa free ma ka jirto xayiraad ah. So marka langs rechts dhanka midigta ayaa laga soo yareeyay. Boorka xiga
waa beweegbare brug. Beweegbare brug. waa buundo ama buundada oo dhaqaaqi karta amaba mataqaanaa nuuxsan karta. waxaa loogu talagalay waa buundooyinka hoos ka leh biyo mareenka markay marayso markaba mise doon uu maraayo markaasaa loogu talagalay in laamigii uu kala furmo ama macnaha waddadii aad isticmaalaysay ay kala furanto. So marka waxaa lagu leeyahay iska jir ama iska ilaali buundadan waa buundo dhaqaaqi karta insha allah. Calaamadda xigta wuxuu dhahayaa uitweg op kai of en over. Uitweg op kai of en over. wuxuu leeyahay meeshan waa meel biyo mareen ah oo geeska ama hoostaada ama labada geesoodba dhinaca bidix mise dhinaca midigta. waa meel biyo mareen ah oo laga yaabo inaad ku dhacdo. isku leeyahay marka iska jir insha allah. meel keliyo kale ama waro kale weeyaan. midka xiga wuxuu dhahayaa outholing over dwars of Ezelsrug. wuxuu dhahayaa waddo god iyo doon ah oo leexleexad badan leh. yacni waddada si fiican muu samaysno. wadda oo meelna way ka buuran tahay meelna way ka yar tahay. waa wadda adiga aanan wanaagsanayn oo aanan sinnayn. so marka uitholing over dwars of Ezelsrug. calaamada xigta wuxuu dhahayaa verhoogd inrichting. verhoogd inrichting waa soomaalida waxay dhahdaa askari jiifo. waa adoo socdo badanaa waxaa loo isticmaalaa yacni waddooyinka macnaha lagu wado soddonka lagu wado. saa u socoto waxaa arkaysaa meel yara buuran amaba taagan oo macnaha la dhisay. meeshaasaa loo yaqaanaa verhoogd inrichting. waa laamigii mise waddadii oo si sare loo qaaday. kan xiga wuxuu dhahayaa waa glibberige gladde rijbaan of slipgevaar. yacni waa waddo lagu siiban karo waddo laamiga ah oo baabuurta ku socoto maadaama baraf ama wax kala jiro waa lagu talaarixi karaa ama waa lagu macnaha siiban karaa insha allah. boorka xiga ama calaamada xigta Kaiserprojectie of Opspatendensteinen. waa meel jaay ah ama waddo jaay ah ku wada gaariga. waxaa laga yaabaa marka dhagaxaan qaruraca in mataqaanaa aad uu macnaa lugaha gaariga ay turtuuraan ayaa laga yaabaa. ama gaariga ka horeeya inuu dhagaxaan soo tuuro ay kaaga dhacaan miraayadaha. marka iska jira lagu leeyahay. kan xiga wuxuu dhahayaa fallende steinen. fallende steinen dhagaxaan soo dhacaya. dhagaxaan soo dhacaya badana waa meelaha macnaha buuraha oo kale weeyaan insha allah. calaamada xigta oversteekplaats for voetgangers. oversteekplaats for voetgangers waa meel ay maraan dadka soconaya ama lugeynaya. oversteekplaats waa meel ay gooyaan mise ay maraan for voetgangers dadka lugtooda isticmaalaya. midka xiga plaats waar speciaal veel kinderen komen. waa meel si khaas ahaan ama gaar ahaan ay caruur badan u imaan karaan. marka iska ilaali. kan xiga oversteekplaats for fietsers. oversteekplaats for fietsers waa meel ay gooyaan mise ay maraan baaskiilayaasha. kan xiga doortocht van Grotwild. meel u ah macnaha marin ama ay yacni ay mari karaan Grotwild. maxaa la Grotwild? waa duurjoogtada xayawaanka duurka jooga oo kale sida sagaarada ama deerada oo kaleete. midka xiga wuxuu dhahayaa asigane doortocht van Vee. meel ay mari karaan
xayawaanka la dhaqdo sida lo'da ama ariga, geelka ama dameerka oo kale. Kan xiga wuxuu dhahayaa asigana iska ilaali weegwerken. Wadada shaqaa laga hayaa ama weerka kaliya way noqon kartaa. Laakiin badanaa weegwerken wadada shaqaa laga hayaa. Midka xiga wuxuu dhahayaa iska ilaali verkeerslicht. Stoplicht ayaa meesha ku yaal ama semaphore ama nalkii dadka istaajinaya guduudkii cadaanka ee jaalaha iyo macaan cagaarka ahaa. Calaamadda xigta wuxuu dhahayaa vliegtuigen op geringhoogte. Vliegtuigen diyaaradaha op geringhoogte, yacni joog hoose ayay ku duulayaan. Yacni waxaa laga yaabaa in aad u dhowdahay eelaboorado kale. Boorka xiga ama calaamadda xigta Zijwind. Calaamaddan waxay ka hadlaysaa ama ay kaaga digaysaa dabeelaha markay jiraan. Zijwind dabeesha dhinac bay kaaga imaanaya ama dhinac bay kaa riixee. So marka Zijwind dabeel dhinac kaaga imaanaysa. Midka xiga tweerichtingsverkeer. Tweerichtingsverkeer toegelaten. Yacni wadadan in labada dhanba laga galaa ama laga isticmaalaa waa la ogol yahay. In go-and-back ay leedahay wadada waa la ogol yahay. Yacni labada jihoodba horay gadaal in gaarigu ka hor imaado adna ka hor tagto wadadan waa la ogol yahay. Tweerichtingsverkeer toegelaten. Labada jihoodba in loo isticmaalo wadada waa la ogol yahay. Kan xiga wuxuu dhahayaa overweg met slagbomen. Overweg met slagbomen. Wada tariin mara oo haddana birihii macnaa dheerdheeraa oo soo xirmaya leh. Iska ilaali wada tariin mara oo birihii dheerdheeraa markuu mataqaanaa yara gambaleelka isa soo xiraayay leh weeyaan insha Allah. Boorka xiga overweg zonder slagbomen waa wada tariin mara oo haddana aanan lahayn birihii. Yacni waxay leedahay meeshan stoplicht oo kale ama verkeerslicht oo kale ay leedahay. Kan xiga overweg voor enkele spoor. Overweg voor enkele spoor. Waa wada tariin mara oo haddana halkii marba waxaa mari kara hal tariin oo kaliya enkele spoor. Yacni waxay leedahay hal wado tariin bas ay leedahay. Waxay leedahay hal wada oo tariin. Yacni halkii marba ay furanto waxaa mari kara hal tariin oo kaliya. Calaamadda xigta overweg voor 2 of meer sporen. Meel tariin mara oo leh laba wado tariin ah ama ka badan. Spoor waxaa la dhahaa wadada tariinka uu maro. Overweg voor 2 meel tariin mara oo leh laba of meer ama ka badan sporen. Meesha tariinka uu maro. Calaamadda xigta gevaar halis. Halista de situatie wordt uitgelegd door middel van een onderbord. Yacni halista laguu sheegay oo boorka kuu sheegay waxaa lagugu sheegi doonaa mise lagugu macnaha tilmaami doonaa boor hoose oo cadaan ah. Qoraal ayaa lagugu qorayaa ama sawir. Yacni gevaar halis unbaa lagaaga digaya. Calaamad cajiibka waxay ka mid tahay gevaar just halis waaye. De situatie wordt uitgelegd. Xaaladda waxaa lagu sharaxayaa door middel iyadoo la isticmaalayo van een onderbord boorkan hoose yaal. Qoraal ayaa lagugu qori karaa ama sawir oo macnaha lagu dhahayo halista waxay tahay waxaas iyo waxaas iska ilaali. Calaamaddan waxay tahay iyadana openbare weg kruist met 1 of meer in de rijbaan aangelegde sporen. Wadada openbaarka ah oo la wada isticmaalo waxaa goyn kara hal ama laba ka badan oo spoor ah. Waxaa loogu talagalay magaalooyinka waaweyn waxay leeyihiin waxa la dhaho tram. Marka tramka wuxuu leeyahay asagana sida tareemadoo kaleete yacni wadooyin gaar ah uu leeyahay oo bir ah. So wadadan waxay leedahay hal iyo wixii ka badan
oo macnaha oo yacni hal wado oo tram ama labo sporen ayuu leeyahay insha allah. boorka ugu dambeeya insha allah wuxuu dhahayaa khalaada rayban wuxuu kaaga digayaa meeshan waxaa macnaa laga yaabaa inaad la kulanto wadada in ay mataqaanaa tahay mid lagu sibiraxan karo ama hadduu ilaahay idmo ay leedahay khalaad hayd sidoo kale waa simbiraxshadii mukhliq als gevolg van idle of sneeuw waxaa laga yaabaa in ay meesha ka jirto khalaad hayd siibasho uu sababay baraf oo dhega ama barafka kor ka imaaday sneeuw waxaan filayaa boorkaas in noogu dambeeya insha allah waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada kanaalkeena insha allah waxaadna kala kulmi doontaan casharo kale oo idin xiiso geliya hadduu ilaahay idmo insha allah tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu